السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديوغان waxaa idinku maclin doonaa insha Allah 10 website ee maaragta shanta koowaad ay tahay in wax khibrad u baahneen laakiin shanta dambe khibrad u baahnanaysid. Marka insha Allah let's go to the video. Website ka koowaad wuxuu noqon doonaa Amazon Mechanical Turk. Amazon Mechanical Turk saa u jeedin waa kana kor maaragta meesha search ka waxa ku qoran Amazon Mechanical Turk ku qoraysa website kana ku soo baxaya sida website ku akhrinayo waa arkaysiin waa crowdsourcing oo marketplace waaye dad badan shaqo soo gelinaya marka dadka shaqada soo geliyaan adiga wixii tabarta ka qaban kartay shaqadaas qabanaysa marka fee for service waa shaqada marka haru qabatid you get paid isla markii way ku siinay marka waxa waaye shaqo yar yar waaye oo sida tusaale ahaan maaragta virtual assistants oo kale ama qof u baahan in loo monitor gareeyo some kind of ad ama email qof loo diro waxyaalahaas oo kale waaye marka you don't need a lot of experience ma u baahnid Amazon Mechanical Turk midka koowaad kaas waaye website ka labaad insha Allah wuxuu noqon doonaa sana Microwork asana waa kana waxa qoraysa www.microwork.com marka tagtid caadi meesha register ku qoranta click siinaysa waa register gareynaysa marka website ka waasa u jeedid asana macnaa dada shaqo soo gelinaya badana kan waxa waaye maaragta in dad loo qabto like a landing page ama loo dhiso ama maaragta data collection loo sameeyo research loo sameeyo transcription ama codka la bedelayo dadka u baahan in loo sameeyo maaragta wax loo yaqaano sentiment analysis surveys waxaasoo dhan marka marketing hadaad samayn kartid moderation hadaad samayn kartid asna wuu leeyahay waxyaalo badan aad samayn kartid aad jirto in order to get paid marka waa soo gelaysa website-ka markaa soo geshid waa register gareynaysaa register kor ku qoran yahay register gareynaysaa halkaana u jeedid waa kasii soconaysaa marka number 3 waxaa loo yaqaanaa user testing number 3 waxaa waaye user testing asana waxaa waaye website oo website-yada kale oo marketka ku cusub ama website-yada kale wax ka qaldan yihiin ayaa testing ku sameynaysa sidoo website-ku shaqeynayo haddii uu adag yahay haddii uu fudud yahay wixii ka yar qaldana u malaysid inay maaragta dib maaragta website-ka maaragta lagu dhibsan karo oo kale waxaa sameyn kartaa surveyna waa sameyn kartaa tusaale ahaan macnaha haddaa website-ka geshid gudihiisa waxaa ku jira McDonald's, Starbucks, Tesla, Ford, Uber, AT&T waxyaalo badan Facebook aad sameyn kartaa caadi maxaa la dhahay testing ku sameynaysaa abyaalkooda markaad testing ku samaysid markaad dhammaysid lacagtaada ay kuu soo dirayaan asana caadi maxaa la dhahay wax badan complicated ma aha su'aalo ma ku weydiinayaan automatic waaye join today adaysa join today markaad aadid caadi maxaa la dhahay then uu ku ogolaanaya shaqada caadi maxaa la hore kasii wadanaysaa alright website afraad inbox dollars asna waa kana inbox dollars al dhaha www.inboxdollars.com kana marka waxaa waaye waa reward system waa kan rewardkiisa wuxuu ku fiican yahay coupon ku siinayeen waxa ku siinayaan actual cash ay ku siinayaan so marka so maaragtid earn cash for your everyday online activities kulli online oo ku jirta waxay qabanaysay online ka qabato la sameynaysa soo shaqeynaya ku sharxaya marka branch waxay ku leeyihiin dadka kale ayaana bay gareynayaan adiga ku shaqaaleynayna kadib shaqooyin yar qabanaysa survey qabanaysa video fiirsanaysa TV fiirsanaysa cuntooyin oo maaragta redeemable ah jira marka free coupon camal aad ku gadanaysa then waa kana step 4 waxa way earn cash no points meel badan maxaa jira like point yaal badan aad keentid waaye si oo maarkino aad cash galaysid laakiin kan malaha waxaas they really very good an accountant to leeyahay kan is one of the things that I use laakiin you have to know $15 inaad ka samaysid waaye si aad check out galaysid check out si aad u samaysid $15 inaad ka samaysid waaye so marka so maaragtid aadam maxaa dhahay badana maxay bixiyaan 50 cents ilaa iyo $5 inta u dhaxayso 3 minutes ay ku qaadanay 3 to 25 minutes ay ku qaadanay ilaa intaas
qaarkood waxaa jiro bixinaya $10 $20 ilaa wax ka badan bixinaya khaasatan kuwan oo maaragtay oo like brand marketing ka sameynaya oo kale ayaa ku badan marka waxaad geysan kartaa videos sidii oo kale and then games ciyaari kartaa online shopping waxaad sameyn kartaa and then hataa like waxay kugu siinayaan ina email akhrisid waa kana caadi ku qoran yahay meesha gashid get paid to read emails kliga ku siinaysa caadi it will give you more marka sidoo hataa waxay bixiyeen website kan caadi maxaa la dhahay 80 million oo cash rewards ay bixiyeen sanadka hadda soo dhaafay so it's a reviews afirisid waxa ka bixiyay review like 29,815 people ka bixiyeen wuxuu haystaa all of them 5 stars siiyeen 5 star marka partner yaka la shaqeynaa waxa kamid ah Netflix, Target, HR Block, Walmart kan waxaana uu ku fiican yahay is international you sign up marka sign up galaysid as soon as you sign up first ay kugu soo dhaweynaya $5 inta kalena inaad shaqaysatid waayo then marka shaqaysatid it will pay you every $15 waa cash galaysan kartaa weekly monthly ay soo diraan lacagta laakiin anytime adiga waa cash galaysan kartaa so qaybtii maarta kan shanaad oo u baahneen asana skill waxaan dhahnay shanta kood skills ma u baahno Geekwork mid la dhahayo Geekwork asana waxaa waaye website oo ku beegareenayo maaragta in aad qabatid shaqooyin yaryar kan wuxuu ku fiican yahay ani markaan si fiican u fiiriyay isheeg wuxuu ku fiican yahay like in person marka in person qof shaqo u qabanaysa meel aad u tagtid maaragta bookkeeping oo kale like office desk oo kale waxyaalahaas oo kale sameynaysid oo ku fiican yahay laakiin asana wuu leeyahay watch videos caadi maxaa la dhahay data sheets can request this how works marka you create an account caadi maxaa la dhahay profile dhisanaysa dad lagu maasha gareenaya and then caadi boom aad shaqaysanaysaa so asana saas oo kale waaye both marka virtual nagu leeyahay in person nagu yahay okay marka qaybtaas uma baano kuwan ma baanid in skills ma baanid hadii u baahan yihiin adoo baantana wax yar waaye and it's something badana ma u baahanid so because I use it and I use gareeyo kuwan 3 or 4 of them and I use gareeyo you don't need skills so marka number 6 which meesha marka qaybtan waxaan ka gelinaa qaybta u baahan skills number 6 Toptel is a company oo shaqaaleeyo maaragta really high skill freelancers that specific skill leedahay like caadi maxaa la dhahay marketing management oo kale transcription translator things like that marka industry-ga ay u shaqeeyaan kuwan marka healthcare life science consumer product and services financial hadda ma garanaysaa xisaabta ku fiican tahay industrials communications media iyo technology intaas waxay la shaqeeyaan maaragta field ay leeyihiin six field yeah. So marka this one needs a lot of maaragta wuxuu u baahan yahay certificates and caadi maxaa la that's why they call it top 3% or highly skilled people hire gareeyaan which means it doesn't mean like maaragta 100% marka la fiiriyo the entire world 3% lay hire gareeyaan macnaha saas ma kala jeedaan 3% on the specific field for example haddaad turjumaan aad garanaysid and resume fiican aad haysatid maaragta caadi wallahi there you go that's Toptel kan waxaa waay usually freelancer way marka caadi adoo xaafadda joogtaa iska baashaalaysa alright number 7 waxaa waaye Upwork anaaba isticmaalay I personally use it asna waxaa loo isticmaalaa IT iyo dadka IT ku fiican app develop ku fiican web develop ku fiican and things like that amise waxyaalo kale technical stuff ku fiican waxaa kaloo ay sameeyaan designs maaragta tusaale ahaan haddii website design garanaysid video editing daa garanaysid picture editing haddaad sales garanaysid oo marketing asna way xeergaranayaan writing and translation way sameynayaan admin and more wax kale kasii daro tusaale ahaan haddii oo accounting aa garanaysid finance HR training legal haddaa garanaysid engineer architecture
okay marka intaas oo dhan ay sameeyaan and it's really good kan waxaa waaye marka hore free u ahaa hadda laakiin haddaa gaarto certain I think income kaaga ku xiran yahay waxaa you have to pay them. So trusted people oo la shaqeeya waxaa kamid ah Microsoft, Airbnb and GoDaddy. GoDaddy waxaa la website asana oo maaragta oo sameeyo domains haddaa u baahan tahay you can buy domains. They also do hosting too. They host websites and they have their own checkouts and things like that. It's really cool tool. GoDaddy all that. Marka in dadkaas la shaqeeyaan and any talent dalada caadi waay as you can see it you can post a job dad shaqaaleynaysid oo inta shaqaaleyn karta. You can also find a job and you can buy projects. So waxyaalo badan ay qabtaan marka kana caadi maxal dhahaye waxaa waaye waa highly skilled inaa ahaatid waay. I've seen tusaalahaan haddaad fiiri haddaa inta searchka aan ku qoro watch this Somali tusaalahaan haddaan ku qoro because of Somali ku hadlayna mugtahay. Look at this caadi maxal this guy Ismail W multidisciplinary Somali translator, public speaker and diversity trainer, $65 an hour. Yarkan oo maaragta uu ku waxaynaya maaragta ku judge garaynaya client things. So far this is true kan maaragta $400. This is Adam Halday actual money that he made from this Adam Halday website kan uu ka sameeyay maaragta $65 waaye maaragta uu ku judge garaya. You can Halday website kiisa waa kan iska dhaaf, you don't need that. I mean you can waxaad tagaysaa profile kiisa and waa shaqaaleynaysaa and all that. Gabadhan professional translator waay adil aldhaa marka iyadan tusaalaan $19 marka sidoo it's all about waxa iska dhigtid waay. Interviewer Muxdin medical interpreter lowest domain degan yahay Muxdin $60. I actually know this guy. $60 asana uu qiimeeyay maaragta by hour. So far wax ma shaqeynin and he did not earn anything. Same thing gabadhan because dadka sometimes waxay sameynayaan they create hype inta yihiin best way. They create an account and way iska dhaafayaan. You know what I mean? But last year I've seen a guy kanad oo kale caadi maxal dhahayaa this guy Charles interpreter right and $300 on day, $600 Bushra or Bushar $600 Arabic waa malayna caadi maxal dhahayaa gabar kale waatan Ihlam Somali waa iyadana $20 by hour I value ku samaysay and 100 she earned $100. But I've seen I think it was last year I've seen some guy that made $10,000 from this app, just this app alone in 6 months. So it's very good one to Adam Halday to lacagsi ugu samaysay. All right, that was number 7. Number 8 wuxuu noqoni doonaa insha Allah Fiverr.com waa anigu waan use gareeyaa tusaale ahaan haddaa u baahan tihiin in maaragta caawinaad dheeraan u baahan tihiin to set it up let me know. Meeshan u jeedid this is the money that I spend. Tusaale ahaan if maxaan shaqaalay I'm a marketer so like I'm an affiliate marketer and a lot of times I don't have shaqa caadi dhawaan aadaa marka and I have a family and all that marka ma haysti maaragta a lot of time so I hire these people to maaragta and to do a job for me. For example the order mesh order antago waxaan maaragta complete ku qoran yihiin all these haddaa view garay all of them view all your orders. tusaale ahaan waa kuwana you can tell what I spend Adam على $38 $7 $170 48 waa sii socdaan all these things maaragta oo realka ana order garaystay and I paid people to do job for me. Why? Because it's worth it. So that's how I do things. Waa shaqaaleyn kartaa but that's not what we want right now. I mean haddaa busy taa waa samayn kartaa yeah but waxa hadda aragno waxaa haddaan switch to selling aan ku andhaho watch this let's see ani waxaan sameeyay so ani marka I have a
tusaya. So for example if I click gigs that click ku siiyo bahalkan soo maartid anaa sarad gareeyay 100 and anoo waxba sameynin de 124 people are click siiyeen bahalka translate English to Somali and vice versa. English waxaan ku bedelaya Somali waxaan ku bedelaya English. turjubaan camal waaye but oo qoraal soo maaha. marka inta meeshaan create meesha ku qoran create gareynaysa caadi maxaa la dhahaye marka badana it's not the only thing marata tusaale ahaan if we go back to buying inta daa ku qortid let's see Somali because of Somalia ku hadlayna Somalia ku qortid watch this I will do Somali female voice over maxaa waaye tusaale ahaan qof af Soomaaliya rabaa in qoraal oo loogu dhaho marka qoraalka uu ku soo diyaarinaya codad u saaraysa marka qaasatan badana gabdhaha sameeya it's really beautiful. I've seen tusaale ahaan and this person 18 people are review ka biya 4.9 which is good can 3 people iska dhaaf but chaters are gabadhan tusaale ahaan 25 people are review ka biya which means this 25 people ay qabatay shaqada mise ku dhufo adil ku dhufo. Some of them are the direct message ku soo dirayaan and gooniya ula xiriiri kartaa but this is something you can set up easily. And if you guys need more tutorials or sidii freelancer ka loo sameeyo caadi maxaa la dhahaye loo geliyo meeshan waa idin tusi karaa laakiin it's gonna need a whole and waxay u baahnaan doontaa a whole new isheg tutorial u baahnaanaysa marka I don't want to deal with it right now but you can see the idea ku arkaysaa. So marka caadi macallin Cumar ka tusaale ahaan wuxuu leeyahay I will provide voice over marka $10 u charge gareeya 5 qof ka codsatay and qofkan asana wuxuu leeyahay waxaan translate gareynaa Swahili Somali and Masai in 24 hours $20 way 13 people isticmaaleen. You can see the idea. So marka caadi yarkan maxaa la dhahaye asana is good and judge me whatever that is. I will translate your documents from English to Somali and vice versa. English dayn Somali u bedelaya Somali dayn English u bedelaya 39 qof ka codsatay $5 lagu judge gareeya because it's cheap. So marka hadda wax kale amal kale ahaynin maaragta caadi maxaa la skills kasna leedahay this is a good opportunity for you to make money online. caadi maxaa la dhahay opportunity fiican waaye ama fursad fiican waaye lacag ku sameyn kartid online inshallah ilaahay ha fududeeyo. So number 9 wuxuu noqon doonaa sana and freelancer hire freelancer.com al dhaabis. So marka freelancer.com kan you can earn money as a freelancer. You can hire gareyn kartaa let's say lacag rabna inaan ka sameyno. Okay, it's telling us to join. So let's go back. Okay, so marka sama marka you can post the projects or caadi waxaa noqoni kartaa affiliate ka noqoni kartaa maaragta adaa waxaa post gareyn kartaa shaqooyinka yani aragti dadka kale inaa u qabateed. So marka meesha maaragta find freelancer ku qoran tahay or buy a skill maxaa la dhahaye markii qof uu ku dhufto meeshan uu imaado and all this design haday rabaan hadii writer ay rabaan hadii SEO ay rabaan digital data entry clerks virtual assistants waxaan dhan waa noqon kartaa waa kana markii sidoo find freelance translator markiido let's see translator caadi marka waa kana English find English translator. I don't see Somali here like you can add it because I know for sure a lot of people that in my circle or استعمالنا جرا that I know I've seen it before. أنا ما استعمالي personally as عبد الصلاة ما استعمالي لكن it's good website عادي محل to use it for هذا أو استعمالي سيد مارك in or out and service كا بناك أجي سيد whatever services I سيد عادي محل ده ماشي سجلنا إيسا and الله أعلم لا عكس من إيسا. So number 10 and عندنا task rabbit أصلا وكنا your house deserves better. كم وكفي عني بدنا دتك جو European countries iyo America وكفي عني specific skill وبهاني because idea رادت سينا إنسانه marka kan wuxuu kaga fiican yahay kuba kale is
tusaale ahaan aniga maxaa dhahay area aad joogto St. Paul for example wuxuu ku fiican yahay. The reason I said Europeans and America ku fiican yahay because kan online ma laga sameyn karo. Haddii online laga sameyn karna I think it will be very tough. Laakiin this is the job marka caadi maxaa dhahay projectiga table and desk simply waa dhisaysaa bis. Haddii qof aad table soo gadanaya ama kursi ama miis soo gadanaya waa xirxiraysaa literally that takes haddii qof oo maaragta oo maaragta fahan badan leh oo raaci karo instructions ama oo raaci karo maaragta hagitaanka maaragta instructions raaci karo you can make it $30 ku samee 30 minutes ku sameyn kartaa $100 right there $44 to $100 TV alka maaragta inuu derbiga lagu xiraayo ku xiray derbiga ku xiraysaa waa kana mount a TV on a mirror projects caadi maxaa dhahay waxay qaadanay TV lagu xiray derbiga 20 minutes 15 minutes ay qaadanayeen 10 minutes hatta qaadanay you make $100 ka banaanka waaye si hada box traga ka dejinaysid hada cleaning and sameynaysid and office and home delivery hada sameynaysid delivery like $18 to $28 an hour waaye okay marka that's how it works. Marka waa imaanaysaa waxaad dooranaysaa maaragta waxa aad skillka oo fiirno horta waxa maaragta review ku sameynaysaa skillka aad inaad gelisada qabatid meesha gelinaysaa then you set your price kaaga marka aad sameysid schedule caadi maxaa dhahay qof aad soo codsanayo schedule ka sameynaysaa and then waa qofku waa la hadli kartaa a lot of these people badan lacagta waxa lagu sameeyaa maaragta tip because these people maaragta wax oo ayaga ay sameysan karaan ay maaragta because time-ka u ogolaanaynin adaa u sameynaysaa marka they will be happy and waxay ku siinayaan marka money. So marka let's look at this guy do aragta maxaa dhahay Jeffrey Segan cadaankan caadi maxaa dhahay wuxuu qof ku caawiyay in uu guuro saacadii intaas waaye home repairs intan ku sameeyaa and then saan camal u setup gareynaysaa. So you should be good. عادي محل ده you can also search by key check by zip code. So adapted. This is why I said عادي محل ده so these are the meelaha uu ka jiro inside the USA. Intuu ka jiro waa kuwana intan oo gobol uu ka jira Florida, Hawaii, Arizona, Connecticut, Louisiana, Maryland, even the cities will share Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nebraska, Allah musta'an, New York, state qaar uu ka jirina jira which means so marka fiiri and these are the other European kale waxaan ku reebay let me see but yeah some Asians are ku jira United Kingdom, Canada, France, yeah European with France, Germany, Spain, Portugal, and Italy. So marka intaasoo country ku jiro kulli waa European countries. You click the country aad joogtid ku dhafanaysaa haddaad joogtid United Kingdom waa dhagsiinaysaa and waa kuwana intay kasoo baxayaan Birmingham iyo caadi maale Brighton, Bristol, Cardiff, Coventry, Eden I don't know kuwan si loogu magacaabo Liverpool, London, Manchester, Newcastle, Northampton waxaan dhan meesha ay ku jiraan. haddana waa bedelan kartaa you go Germany Soomaali badan Germany joogaan jiraan ayagana waa kuwana I'm not even gonna try to pronounce it because Berlin waa kuwana ay buuxaan. So marka waa ku dhufsanaysaa siriga ku dhaw ku dhufsanaysaa and then shaqooyin way soo baxayaan waa shaqaysanaysaa sheekh. Marka that was caadi maxaa dhahay top 10 waaye u baahaneed. Marka labo website oo bonus jira and I told you guys bonus jira. The bonus is website waxa jiro skill ka baran kartid skillkaas ka baran kartid skillka kalina ma ahan maaragta waxay isugu keenay opportunity-ga maaragta Upwork and Fiverr, freelancer.com maaragta iyo kuba kale oo fara badan maaragta hal meel even Facebook ay hal meel isugu keenayaan opportunity-ga maaragta dad meesha lagu soo post gareeyo ay hal meel isugu keenaan. Marka caadi maxaa dhahay way ku barayaan
certificate ay ku siinayaan oo maaragta oo like sheeg that you completed the training and you can do those jobs. Shaqooyinka waa la soo gelinayaa. Marka maaragta waxaan kusoo dhaafi doonaa linkiga hoos aan soo dhigi doonaa insha Allah. Marka that is one bonus. Bonus number 2 waa kana bonus number 2 asana waxaa waa G2. G2 is a website oo asana sameeyo reviews. For example, let's see. The markani the reason I wanted to show you guys ana shaqa aan qabtaa jirta that I worked here. Reviews. So that is, let's find a software or services that you use at work. meelahan markino la tusaalahaan haddaan ku dhufto let's say the accountant finance and accountant aan ku dhufanaya inta markino meesha markaysa you use ku qoran fiiri kuwan anaa ka bixiyay review waa afar xabo waa review aan ka bixiyay Writesonic anaa isticmaalay Social Blue waan isticmaalay waa email software Shopify waan isticmaalay and then I Cordial kaasna email software asana automation email automation iyo caadi maxal dhahay kuba badan ay jireen adii aan ka bixiyay maaragta something but this is caadi maxal dhahay hadii ay jiraan maaragta wax oo adii aad isticmaashay ama familiar ku tahay Dropbox Professional kan oo kale familiar ku ahay laakiin I'm not going to touch it familiar ku tahay markino inta ka soo baxayaan you can also search all adii karta you can also go back marka kan caadi maxal dhahay tusaale ahaan let's say advertising social media ku jira okay media and communication let's click here okay so marka caadi maxal dhahay waxaan dhan hadii ay ku jiraan mid kamid ah isticmaashay aad click siinaysaa click markaas siisid wuxuu ku geynayaa website wuxuu ku geynayaa meel review ka bixinaysid هذا تصالحان okay let's see inaan tusaale idinka bixiya fiican okay let's choose one hal xabad ka dooranayna marka let's say email blaster card email blaster and then waxaan leenahay email blaster kana dooranaysa and then you continue kana marka click siinaysa midka aragtid click markaas siisid caadi su'aalaha waxaan camal waa how likely is that you will recommend email blaster to other friends marka su'aalaha ka jawaabaysa review inta ku qoraysa then next day you continue hada wadiida because wax ma sameeyno tahay marka waa soconaysa ilaa iyo maaragtida link hadda meeshan soo marhaya linkana buuxsamaya click markuu meeshan aadi uu noqdo check oo blue ah soo baxaysa ama green and then complete soo qora complete markuu soo qoro in 2 days email ku soo dirayaan lagu beegarinaa sheekh and this guys waxaan ku jeclaaday review-ga ay qaadanaysa 10 to 15 minutes and waxaan ku soo dirayaan $10 oo gift card ama samaarta Amazon ama maarta maxay kale ku soo dirayaan like waxyaalaha customer to hadda oo ku cusub website-ka marka the reason I use balkan waxa waaye maarta G2gan it's not only this waxa kale oo isticmaalaa website-yada kale ama maarta like website-yaal beecay soo gelinayaan website kale say u isticmaalaan ka baran kartaa basically spy amal waaye oo like legal so marka that's that and I also want to remind you marka inshallah intaas video gaan ku eegay waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo inshallah si maaragta muuqaal badan aan soo duubno maaragta YouTube kala support gareeyo follow and subscribe ku inshallah ilaa waqti dambe assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh video-ga daad awatay hadii maaragta skill ka baratay ama waxa ka baratay ama ka faa'iideysatay fadlan and follow the subscribe sar si maaragta marka wax soo galiyo next time ku soo gaaraan channel-kana si aad u taageeraysid inshallah wasku qoran maaragta website ama maaragta resources ka faa'iideysan kartaa assalamu alaykum wa rahmatullahi